gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Saleebaan Doob ayaa ku eedeeyay maamulka dawladda hoose ee Burco inay iibiyaan dhul danguud waa sidoo hadalka u dhigay magaaladan Burco waxa ka jira arnaad iyo adag oo ah wadooyinkii iyo dhulalkii danta guud ahaa ee yareeyaa farkutiriska ay magaalada ku haray oo sifo kasta loo maray dawladda hoose ay si khaldan u isticmaalayso kadimadii iyo dariiqyada yareeyaa la marayay bilaadanku isaga talaabayeen la gooyay dariiq yar oo kasta oo banaana oo la mari jiray in la xidho dariiqa aan hadda doonayeen ka hadla waxa weeye waa baarsiga weeye waxaan baaq u dirayaa wasaaradda arrimaha gudaha waxaan baaqay labaadna u dirayaa barasaaba gobolka Togdheer waxaan leeyahay haddii dawladda hoose ay ku xadgudubto shuruucda iyo nidaamka dhulka waxa u qaabilsan oo iyaga xukuma wasaaradda arrimaha gudaha waxaan leenahay wasaaradaha ku shaqada leh ha soo farageliyaan dhulkan sida sharci darrada loo dhisayo hase yeeshee duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ayaa si adag uga jawaabay arrinkaasi isagoo cadeeyay Maayir in dhulkaasi aanu ahayn danguud ee uu ahaa dhul ay dad shacab lahaayeen oo waliba dadkaasi isku haysteen muddo dheer hadeerna ay maxkamaddu u soo xukuntay cidii lahayd dhulkaasi oo dhisanaysa waa sidoo hadalka u dhigay dadka beenta caadaystay lambar casayaasha laakiin haddii dadka been loo sheego in runta aan u sheegno iyo sida ay tahay waxaan isleeyahay waajib cayn nagu noqonaysa dadka aan u jawaabayo maan jeclayn inaan u jawaabo iyo kuwa soo istaaraya laakiin way ka maarmi weyday markii beentoodii ay farabaatay inan baa heestay waxay tidhi caano baqay beraan dhamay hal baktidayna beraan qalay biyo diidiguma jiro balaan la booda boojada lambar casayaasha kelmad baan leeyahay meesha laygu eedeynayo laleeyay Muraad baa iibiyay ama Maayirka iibiyay waa goob 20 sanadood la isku haystay oo reer Burcaba ogyihiin inantii dhakhtarada ahayd Shamis la oran jiray imkana dibada ku maqan iyo niman dhalinyaro ah oo reer Burcaba isku haystay 20 sanadood baa la isku haystay waxaan Maayir noqday iyadoo maxkamadda sare ku jirta sidaan ku war helay hadda waa la soo xukumay xukunkii ugu dambeeyay dad baa loo soo xukumay dadkii loo soo xukumay xukunkii sida sharcigu yahay maxkamadda gobolka xukunkii lagu soo hagaajiyay inay fuliso maxkamadda gobolku iyada fulinaysay annagu shaqulka waanaan lahayn maana fulin hay'ad fulineed manihin mana xukunno kuwii laga helayna magaalada joogaan in laga helay way ku qanacsan yihiin maxkamadda gobolka warqad bay noo soo qortay ay leedahay 1 kilomitir noo soo dira kilomitir baan u diray maxkamadda gobolka dadkan waxaan leeyahay beenta caadaystaan waxba isku falayn warda meesha hadii hunguri idinka hayo de nimanka meesha leh saaxiibo isku dhawaadatiina dawsha xataa ilmaade reeyal Xabiib Ega Xasan Universal TV magaalada Burco